لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام انت وانا اضحك خلي البسمة تنور قلبك خلي الفرحة تضوي دربك ما في شي في الدنيا يسوى تزعل روحك اضحك مثل طفل بأول عمره مثل بنية تقطف زهرة مثل أم تبوس ولد راجع من برا اضحك لدنياك اضحك لدنياك mudane beeldaaje salaantiin aniga gudoon mudane beeldaaje salaantiin aniga gudoon osaaka safarkaaga waxaan soo dhawaynayaa osaaka safarkaaga waxaan soo dhawaynayaa samaaka taliskiyo salahaadinti waa diyaar samaaka taliskiyo salahaadinti waa diyaar madaxdi sare iyo sarahaakiishi waa safay ubaxya cayn cayna calanbaa dushaada suran oo soo dhawaynayo waxaan kaaga dhigan salaan alifka sadankiisa iyo suuradaha qurax sama ku hogaamin saadiirkeen ha kula jire isin xaqaata yaxiisa lagu qabaa isin xaqaata yaxiisa lagu qabaa karaamadii aabbahaaba korkaaga suran karaamadii aabbahaaba korkaaga suran xadiiskiyo diinti cilmigii adaa xifdiyey xadiiskiyo diinti cilmigii adaa xifdiyey xaqaa ku guulayso rabbi xakim baan baryaa abtiyo beerdaaja safarkaagi nabadaha abtiyo beerdaaja safarkaagi nabadaha hadaasa dibadaha kasoo dusha dalan dhaway dadkaagi soo aadayo dowladii buntland oo daafihii ayraboorkan diyaar u nahay galaydaasoo dalagiisa la duubayaa ubaxyaaninayna calamo dushaada suran ilaahbaa hibada soo nasha hawsha guud sardaanada hayso weliga hogaankahay burhaasa ku saaran rabbiyo ha kaaga darin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa marti sharafta iyo dadweynaha isugu jira cuqaasha waxgaradka ururka haweenka ciidanka booliiska xeeraliyaha
dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay soo dhaweynteeda oo intaas oo saacadaha u taagneed sida aniga ii soo dhaweyn lahaayeen waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa inaan halkan ooga mahadnaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dib nuskuulkaaga soo celiyey annagoo caafimaad qabna muddo 4 sano kadib waddanka dibaddiisa aan waxbarasho iyo howlo dhaqan aan ugu maqnaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadda iska leh waqtiga oo noo gaaban oogeed iyo maaragtay idinka oo muddo dheer isugayay waxaan insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo oon ururyada bulshada iyo waxgaradka aan la qaadan doonaa shirar googoos ah hadduu ilaahay yidhaahdo ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سبحانه وتعالى ماشان كان سوكنا يبقى مهد ما أنت ديسكله إلهي سبحانه وتعالى إن كدغي مسلمين إن جرسيي شريعة الإسلام كإن قادنا وأهان ضد مسلمة موحدين والله سبحانه وتعالى كلجي عابده كلجي بريه كلجي مجنجله والنعمة نعمة الإسلام نعمة الإيمان والنعم أن قفها يستاجرين إلا ضدك مسلمين تعقوبا ما هني marka had iyo goor waxa leeyno ka baahiyaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala umma had celino inteena meesha isugu timina rag iyo dumar uqaal iyo culimo isimo iyo nabadoono dhamaanteen waxa leeyno abuuray Allah subhanahu wa ta'ala inaan caabudno
adduunkan waxaan joognaa waa maalmo laakiin meesha muhiimka ah ee la aadaya waa aakhiro fasaadu fa inna khayra saadi taqwa wattaquun yaa ulul albaab ya Allah subhanahu wa ta'ala war sahay qaata meel loo sahay qaato aakhira waa owlaysan marka waxa leena ka rabaa awaluha inaan Allah subhanahu wa ta'ala ka cabsano meel kasta aan joogno bacdal tadkira kelmadaydan raacsanaya maadaama uqaasha kamid ah nabadoonada waxaan ilaahay ka soko Allah subhanahu wa ta'ala mahad celeena waxaan u bogaadinaynaa oo hambalyeynayna beeldaaja cali beeldaaja salaad oo maanta soo dhaweyntiisi shacabka reer Boosaasood ay ka wada qayb qaateen isimo nabadoono uqaal gabdho aqoon-yahano waxgarad culimo awdiin dadka labeenta ahaa ee wadanka oo dhan Boosaaso joogay ma sha Allah qolo kasta cid baa ka timi waxaan leenahay beeldaajaha beeldaaja cali beeldaaja salaad beeldaaja hambalyo Boosaaso waa magaaladaadi waa kugu soo dhaweynaynaa ilaahay waa ku keenay waxaad ku biidhay ka mid tahay isimada iyo waxgaradka iyo uqaasha iyo culimo awdiinka iyo hay'adda u sareysay Puntland waxaan marka ka codsanay awalaha horta waa ku ducaynaynaa marka labaadna waxaan ka codsanaynaa maadaama Allah subhanahu wa ta'ala uu yiri waa du'u Allah waa du'u rasuul wa ul amri minkum ul amr baatahay mas'uuliyiinta Puntland ama Soomaaliya ba inta soo hagayay baad ka mid tahay waxaan ka rabnaa dulqaad iyo maamul wanaagsan iyo duco iyo khayraad iyo nimco iyo soo dhaweyn iyo ummadda oo dhameeyay isu ka mid noqoto waxaan rabnaa marka insha Allah ta'ala korontadii iyo ما شاء الله كورنتادنا waa inoo timi waxaan marka hadalkay ku soo koobaya maadaama oo maanta ilaa iyo 10kii barqanimo cadcad la taagnaa haddana ay labadii marayso inta waxa loo taagnaa soo dhaweynta beeldaaja cali beeldaaja salaad waxaan leenahay shacabkana waajibaadkii waa gudateen beeldaajahana waa looga fadhiyaa waajibaadkiisa insha Allah ta'ala maanta u bilaabanaysa shaqada ummadda inuu u qaban lahaa waxaan leenahay beeldaaja soo dhawow aad baan kugu hambalyeynayna sida aan ku soo dhaweynay baan rabnaa inaan nolol shaqeyso inaan ummadda ugu shaqeyso inaad Allah subhanahu wa ta'ala uga cabsatid maadaama uu amar tahay maadaama dadku badan yahay hadalka waxaan ku soo koobayaa wada shaqeyn wacan insha Allah ta'ala ilaahay beeldaajihi loo yimi beeldaaja khayr inoo ka dhigo ay salaanta islaamka waxaan ku salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh beeldaajaha waxaa leenahay beeldaaje soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii ku soo dhawow dhammaanna waxaan u mahad celinaynaa inta nagala soo qayb gashay soo dhaweynta beeldaajaha isimada dawladda bulshada qaybaheeda kala duwan kulli waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay sidaad noo soo ajiibteen allaha idin ajiibo oo khayr idinka ajiibo inta ayaan ku soo koobayaa shaqayntu waa muhiim ilaahay quraankiisa wuxuu ku sheegay in ilaahay adeecidiisa iyo adeecada rasuulka sadexay ku tahay wa ulil amri minkum adeecullah wa adeecu rasuul wa ulil amri minkum marka waxa la rabaa madaxdeena aynu dooranay inaynu adeecno la shaqayno wanaag bayno ku talinayaan wanaag qaadano xumaantayna ka digayaan xumaanta ka harro إن شاء الله نجنا دتكنا بلداجها سود وبلداجها وياهي بلداجو قيس معها وحوية هاي أمد الصومالية دورن إيو بدلان معمولهان مركا إن شاء الله ساسان أنت سانو قدك بحياة وعلنا هاي بلداجي سود وحيل كان إلهي قوة أسطورة. دماغ وحن سلامة يا دوينها شرف لا إسكويمت كسر قرب قري حلوة لوسو دويني بلداجها odayaasha oqaasha waxgaradka gabdhaha walaalaha xalalayaha gobolka bari dhamaantiin waan salaamay waxaan u salaamay salaanta muslimka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan leenahay beeldaaji soo dhawow dadka waa dadkaadi dalka waa dalkaadi runtii waa lagu doortay waxaan rabnaa inaad si aan jecelnahay aad dalka ugu shaqeyso dalka iyo dadkaada iyo diintaada وشقة وحن ليه سودو ساسا ناسب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan horta arintani waa soo dhaweyn la soo dhaweynayo beeldaaje cali beeldaaje salaad caleemasaar maaha maanta horena qorax baan taagnayn waxaan salaamayaa isimada inta joogta waxaan salaamayaa nabadoonnada waxaan salaamayaa hooyooyinka iyo gabdhaha quruxda badan waxaan salaamayaa saxaafadda waxaan salaamayaa dhallinyarada dhammaan waxaan salaamayaa xeeraryaha guud Puntland Bashiir Hobeley dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta muslimka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh xafladani waxa weeye soo dhaweyn waxaan soo dhaweynaynaa beeldaaje cali beeldaaje salaad beeldaaje ku soo dhawow magaalada Boosaaso waa magaaladaadii in badan baan ka maqnayd saldanadana ma aha saldana hadda la abuurayo waa saldana soo jireena marka waxaan leenahay beeldaaje hadal badan meesha loogama baahna sida uu sheegay ninkii xiriiriyaha beeldaaje waxaan leenahay ku soo dhawow magaalada Boosaaso waana kula shaqeynaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً وحن سلام يا ددوينها كل أمشى إمادي أو كجور رك يودمر. مرمات وحن سلام يا بلداجيها وما أنت أن أتاجنين أرحدة. هذا نهاي اسمن كبيرها جريروينه قبل كباري كونول. يروى كفتما يا رالي هذا وقتين ويريهاي. aniga waxaan ahay beelaha jireerweyne ku sugan gobolka bari maanta cid ma maqana markii la yiri beeldaajiha la soo dhaweynaya dad qaar ka mid baa jira oo arima leh oo arimahoodii maanta ay soo baajiyeen laakiin hal mid waa ka cudur daaranaya aniga waxaan ahay dad reer koofar ah ninka markuu koofar jooga martida markay u imaato si fiican baa loo sooraa waxaa lagu sooraa bun markaasaa ninkii la jeclayayna si fiican baa loo sooraa ninkii la nacbiyayna waa la gacan bidixeeyaa markaasaa nin baa waxaa soo booqday gurigiisii la soo booqday laba naag buu qabiyo midna waxaa la dhihi jiray shamsa midna waxaa la dhihi jiray khamara ninkii in la wanaajiyo la doonayo waxaa la aadi jiray shamsa qofkii in la gacan bidixeeyey la raban waxaa la aadi jiray khamara dee maanta waxaan dareemayaa in khamara la loo diray li'annahu nin walba maanta waa hadlay oo magaciisa halkan buu ku qornaa laakiin aniga magacayna markii la yeerinayo waa la xasuusinay cudurdaar mara dhib ma jirto insha Allah beeldaajiye waxaan leenahay soo dhawow beeldaajiye waa lagu baahan yahay nin arintii loo idmaday tahay oo shaqadiina aqoon u leh oo shaqada isinka ama beeldaajiyaha mid aas maanta la bilaabay ma aha aabihiisa shaqeeyi jiray shaqadiisiina waa la arkay waxaa kala soo haray Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri markii nabiyulaahi Muusa oo la shaqo gelinayay nabi Shucayb gabdhihiisii codsiga bixinayeen waxay dhaheen yaa abatistajirhu inna khayra man istajarta alqawiyul amiin beeldaajiyaha armihii lagu soo xulay wuu yahay aaminnimo wuu yahay way ka soo hormartay inuu nin aamin as yahay nin shaqada yaqaanin inuu yahay way ka soo hormartay oo faaladiisa ayaa Boosaaso noogu imaatay tan lamaad Allah subhanahu wa ta'ala markii nabiyulaahi Yuusuf asi dalbanay madaxtinimo asaa dalbaday wuxuu yiri rabbi ja'alni inni khazaa'in al-ardi inni xafidun amiin oo wuxuu tilmaantay ilaahow iga dhig buu yiri qasnad haay iga dhig wuxuuna u dalbaday inuu yahay aamin hada beeldaaji waa nin wanaagsan beeldaaji waa ku soo dhaweynaynaa waa ku duceynaynaa haddaan nahay samadoonadii ismadii uqaashii culmadii nahay hal mid rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man khaafa allaha khaafa kulli shay ninka hadduu bi ilaahay ka baqa shay walbi asay ka baqayaan awalan mid ugu horeysa waxay tahay daacada allah subhanahu wa ta'ala rasuulka alayhi salatu wasalaam xadiid kale wuxuu yiri innal muqsidiina 'inda allahi ala manabira min nuurin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walluhum rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dadka ismaha ah ama ninka cadaaladda ah beeldaajiha ahaado qof walba oo horjooga la wada innal muqsidiina 'inda allahi ala manabira min nuurin ninka cadaaladda ka shaqeeya
maalinta qiyaamo wuxuu ku fadhiisanayaa mambar oo nuur ah markaasaa ninkii la faaliyo waxaa la yidhi aladiina yacdiluuna dadka cadaalad samaynaya fii xukmihim wixii ay ku xukumayaan iyo wa ahlihim reerkii ay ku sugan yihiin iyo wamaa walluhum wixii u dhexeeyo beeldaaji soo dhawaaw beesha jareerweyne ee ku sugan gobollada puntland nabadoona waxaan ku leenahay qamaro laguma dirin shamsaanu kuu dirnay waxaana codsanayaa hal mar in sacab jac looga siiyo nabadda kii loogu baaqay ballaarshay noqo oo burhaantii yeelo beeldaajihii ku dhalay adduunkuna waa barye caafimaad ku bari abtiyo bisinkaanu haynaya balahaarag abtiyo bisinkaanu haynaya balahaarag diriya daaroodaday ku durbaansidaan oo dunida inta joogta abti way ku doonayaan diyaaraad calama sidabaa dushaada tuman baabuur baa ku diyaare lagu dalbaday dadweynihii baa garoonkii dartaa u yimi darajo gaadhaye ilaaheen ha kuugu daro darajo gaadhaye ilaaheen ha kuugu daro raxmatullaahi wabarakaatuhu waxaynu halkaan isugu nimi oo wakhtigaanaynu u joognaa soo dhowaynta beeldaaje cali salaad beeldaaje salaad oo annaga noogu maqnaa waxbarashadiisii markuu soo dhammaystana ilaahay maanta noo keenay waxaan rabaa hal kelmo oo dheeraada inaan idhaaho wuxuu yidhi ninbaa wuxuu yidhi been waa sheegi jiraye ma galgalan jira buu yidhi oo maaragtay dhulka ma isla dheci jiray waxa weeye annagu dad waa soo dhowayn jiray intaas oo dada ma ku imaan jireen halkaanoo ma soo dhowayn jireen maaragtay nin ma soo dhowayn jireen haddana ma soo kaxay qorraxdii mawsi adkaysan waa jireenoo hoteel ma kiraysan jireen haddaba waxa weeye beeldaaje cali beeldaaje waxa weeye inta tolka beesha ahna maahe intiina kaloo ka soo qayb gashay inaad ogaataan inaannu makhraj uu noo yahay oo ilaahay nagu galladi doono oo uu noo noqon doono hogaamiyaha koowaad aannu ka dammayno intaas baan rabaa inaan idiin sheego waxaana rajaynayaa inaad noo dulqaadateen aad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan kelmad kooban oo mahadcelin aan ku soo dhoweeyo beeldaaje cali beeldaaje salaad oo aan maanta halkan soo dhowayntiisa u fadhinno ku soo dhowow beeldaaje بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka hore waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay xalfadda soo dhaweynteeda oo iskugu jira madax dhalinyaro uqaal waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ururka haweenka oo aad iyo aad noogu qaalisan waana kaga mahadcelinayaa sida sharafta iyo maamuuska leh oo iigu soo dhoweeyeen muddo saacada ahna iigu taagnaayeen ugu yaraan 8 saacadood ee cadceedda iigu taagnaayeen waa kaga mahadcelinayaa dhammaan xuqaasha iyo waxgaradka iyo ururka haweenka sida aad ogsoon tihiin waxaan waxbarasho aan ugu maqnaa dalka dibaddiisa iyo howlaha nabadeynta ee maaragtay oo hadda aan ku jiro sidoo kale waxaan halkan aan rabaa wakhtiga oo gaaban dartiis iyo anigoo khudbaddeeda aan sii dheeraan garin iyo idinka oo muddo dheer isugayay iyo anigoo safar dheer ku jiray intaba marka hore waa iniga mahadcelinayaa waxaan halkan aan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo hadduu ilaahay yidhaahdo dhammaan si gooni aan isku wada arki doonnaa wakhtiga oo kooban awgeed waxaan rabaa inaan ducayar ku soo gebagabeeyo inuu ilaahay khaatimada noo hagaajiyo inuu ilaahay muraadka noo sahlo inuu ilaahay waxa waaye wixii khayr raba ilaahay ka barinay xilkan la ii doorto la ii magacaabayna inuu ilaahay ila garab galo waan ilaahay idankiis ka baryayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa yaxya beeldaaje salaad waxaan ka mid ahaa guddigii qabanqaabada ee in badan ka shaqaynaya hawshaan
si farxad leh bay noogu soo dhammaatay waxaan beeldaajaha sugeynay muddo inuu noo yimaadana aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waana aragtaan maantay ka soo qaybgalayaasha iyo qaabka maaragtay xaaladdu ay u socoto runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in beeldaajuhu noo yimaado baahi badan baa loo qabay runtii marka aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba in beeldaajuhu naga runtii iisinku waa iisin dhaqana oo soo jireena sida laga sheegay meesha ama uu yahay waxyaabahan ku naqaana waxaa ka mid ah inuu yahay nin karti badan inuu yahay nin aqoon-yahanah inuu yahay nin cadaaladda in badan ka shaqeeya oo cadaalad lagu yaqaano marka intaasoo ummada oo halqaya marka ilaahay uu qof u dooranayo dabcan wuxuu ugu doortaa wuxuu isagu u gartay ugu doortaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم runtii aad baan ugu faraxsannahay maanta soo dhoweynta aadka u qiimaha badan oo loo sameeyey beeldaajo cali beeldaajo salaad beeldaajo cali faarax oo runtii ka dhacday gadiga diyaaradaha boosaaso ka soo bilaabatay ilaa hadda aan joogno howlka gacayte insha allah waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfaca annaguna waa ku garab taaganna insha allah waxaan rajaynaynaa hawshiisa in ilaah u fududiyo waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم أولا وحنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحنا لنا بلدة كسر دو دلك دتك هاي وكتشعل وحنا لنا بلدة welcome بوساسو عاصمة جناحسية بوتلاند بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحنا السود ويني بلدة علي وأنا ما أنت يودن وتاجنين كرون كبوساسو أيربور كبوساسو بلدة وحنا لنا هاي السود وبلدة دلك دتك كسر دو كل قعل بالغو قبا وأنا كنت عينينا إلهي حلك أتقاد إلهي سبحانه وتعالى كل قرب قالوا إن شاء الله نقولنا وحوي سود وينتي سوا كفر حسنا هاي بلداجها وأنا سود ويني الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan soo dhaweynaynaa beeldaajo cali beeldaajo salaad oo aan sugaynay in badan waxaan leenahay beeldaajo ku soo dhawow deegaankaagii dadkaagii iyo dawladdaadii beeldaajo in badan baan ku soo maanta waxa uu inaan ku soo dhaweeyo beeldaajo cali salaad cali faarax oo aan ilaa waqtigaas oo dhan aan u soo huray ma insha Allah dalkiisa u yimid waxaana leeyahay soo dhawow beeldaajo dalkaaga iyo dadkaaga waa u timi soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa Liban Saciid Jibriil waxaan ahay kamid ah ahelka mantaqana familka beeldaajaha waan soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay maan soo dhaweyntiisa shucuurteena lama soo koobi karo aad baan u faraxsanahay waxaan leenahay beeldaajo soo dhawow